asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka su-aalo badan ay soo weydiiseen ku saabsan sideen caruurta u barnaa qaacidada alifka iyo sideen caruurta ku jeclaysiinaa qur-aanka inay bartaan iyo maxaan ilmaha ku jeclaysiin karnaa inay mar walba kitaabkooda iyo qur-aankooda iyo dacooyinkooda inay iyaga iskood uga soo dhacdo inay qabsadaan insha allah. Marka lifeka waxaan ugu talagalay inaa in yar idinla wadaago waxyaabaha aniga aan sameeyey oo ii shaqeeye insha allah. haddii aad nagu cusub tahay subscribe hanaga ilaawin, haddii aad nagu soo noqonaysid waxaan ku leeyahay waa mahadsantaa soo noqodkaaga. Marka waxyaabo badana halkan ujeedaan kullina waa idiin sharaxi doonaa insha allah. marka waxaan ka bilaabayaa alifka. marka wax la baranayo mar walba waxaa muhiim ah ilmaha inay xuruufta bartaan. xuruufta markay ilmaha ku bartaan way fahmi karaan hadhowti siday u akhrin lahaayeen qaacidada, kadibna ay u akhrin lahaayeen qur-aanka, kadibna ay u akhrin lahaayeen dacooyinkooda insha allah. marka ilmaha muhiim waxaa u ah xuruufta inaad ku bilaawdid alifka assuun maaragta xafaayadda marka ilmaha ka goysidba isla marka waxaa kuu muhiim ah ilmaha inaad bartid sida alifka loo akhriyo, inaad la fariisatid aan ka wadaa markaas oo cashar ahaan ugu dhigtid. hadda buuggaan aan ka hadlaya waxaa la dhahaa Arabic alphabet alif to ya. shopkaygu yaalaa amazonka, linkana profileka hoostiisa uu saaran yahay insha allah. meesha hadda iga daawanaysid hoosteeda description boxka informationada dhan oo ku jiraan biidnillah. marka ilmaha markay yaryar yihiin muhiim waxaa ah horta alifka inay waxyaabo badan marar badan loogu soo celceliyo si la qabsadaan xuruuftii iyo magacyadoodii iyo wixii dhammaan insha allah. haddii aad youtube-kayga gadaal ugu noqotidna waad arki kartaa 20 daqiiqo alifka lagu soo celcelinayo insha allah marka caruurta u daar biidnillah. okay, so ilmaha markayna weli xafaayadda aadan ka goynin alifka aad uu muhiim ugu yahay inay maqlaan, inay arkaan, inaa mataqaanaa markay aragti inay xitaa si fiican kugu xifdinayaan 2 sano 3 sano markay jiraan inaa haddana weydiisid hooyo xarafka maxaa waaye, hooyo xarafka maxaa waaye, si aa u kala aragtid maskaxdooda iyo waxbaridda xaggay u maraysaa insha allah. marka insha allah markaa xafaayadda ka jirtid waxaa helaysaa fursad daqiiqado yar waxay ku xirantahay ilmaha waqtiga ka goynaysid. so daqiiqado yaraa markaas u qaban kartaa ilmaha aad la fariisatid. markaana waxaan ku dhihi lahaa u bilaaw buugga sidaan oo kalea oo qaacida baqdaadiya waaye. hadda buuggan asigoo qaacida nuuraaniyana wuu jiraa. marka haddii aad tahay adiga haddii aad taqaanid sida loo akhrinayo qaacidada adi u bilaaw, haddii kalena macallin u qabo because markay bartaan qaacidada hadhowti shaqalada mataqaanaa markuu gudan yahay markuu reeban yahay waxaasoo dhan caruurta way ka caawinaysaa inay bartaan qur-aanka hadduu ilaahay yiraa insha allah. marka buuggaana ugu xijinaysaa qaabka marka loo dhigayo buuggaana kuu sheegaya. haddii aad tahay adiga macalimadda ilmaha waxbarayso ama ilmaha meel geynaysid ama online uga dhigaysid muhiim waxaa waqti yar ilmaha in wax la baro because ilmaha way yaryar yihiin waqti dheerna ma fadhin karaan. so aniga hadda kana u isticmaalaa daqiiqado midkaan daqiiqadahaas aan u isticmaalaa waa gedinayaa waqtigaan rabo marka inaan xuruufta barano ama qaacidada barano waqtigaasaa noo socdo. hadda kan waa 3 daqiiqo isagoo ah 10 daqiiqa jira isagoo ah 20 daqiiqo haddii kale waxaa isticmaali kartaa saacadda yarta digitalka xitaa isticmaali kartaa insha allah. marka daqiiqadaha u yareey ilmaha 3 sano markuu jiro waxaa muhiim ku ah inuu 3 daqiiqo aad la fadhidid ilaa iyo 9 daqiiqo. haddii uu 4 sano jiro marka mar walba waxaa ku dhufanaysaa da-duu jiro 3 ku dhufo marka intii kuu soo baxdo oo daqiiqade ugu kala qeyb wax walba oo caruurtaas ilmahaas ah markaas rabtid inaad bartid insha allah. marka daqiiqadaha u kala qeybinaysaa. so hadda markaa ku leeyahay ilmaha 3 sano jiro 3 daqiiqo ilaa 9 daqiiqo u baahan yahay ma aha 9 daqiiqo keliya xaruuftan kor fadhi ma aha. waxaa u kala qeybinaysaa marka 3 daqiiqo ood aayadaha gaagaaban u akhrido, 3 daqiiqo ood adkaarta u akhrido, 3 daqiiqo oo markaas haddana qaacidada u akhrido. sidaas ugu kala qeyb insha allah. marka ilmaha markay wax baranayaan loo kala badbedelo waxbarashada easy u baranayaan wayna jeclaanayaan insha allah. marka ilmaha markaa u akhrisid buuggan tartiib maybe sanaday kugu qaadanay, maybe 2 sano kugu qaadanay, maybe 3 sano kugu qaadanay, dhib ma lahan.
how long ay kugu qaadanaysa dhib ma lahan muhiimadda waxay tahay un in buugan laga dhex baxo si loo fahmo shaqalada dhan kulli in la fahmo si kitaabka hadhowta easy oo ilmaha ugu noqdo inay akhriyaan biidni illah okay markaa ka baxdiin kitaabkan markaa ka baxdiin insha allah waxaa u bilaabi kartaa kitaabkan qalinka leh wuxuu ku fiican yahay ilmaha markas hadda aayadaha markaa bartid hadda faataxadoo kale ama suuratu naas suuratu falaq markaa bartid oo la fariisatid haddana qalinkaana la socdo qalinka wuxuu ka caawinaya marka inay ku taabtaan aayadda kadibna uu akhriyo kitaabka sheekh markaas u dooranaysidna sheekh cabdulbaasida ugu fiican because asiga si tartiib oo deganaana ugu akhrinaya insha allah sidaas u sameey kitaabkan shopka waa soo dhiga laakiin meel walba waa laga helayaa meel walba dukaan carab ama online meel walba kitaabka qalinka kitaabka leh okay marka daqiiqadahaaga marka sida hadda ay kuu sheegayo kale adigoo ugu kala qaybinaysid markaas aayadaha qur-aankana u baraysaa biidnillaah tu ilaahiraa hadda adiga qur-aanka taqaanid haddii kalena macalina u qabanaysaa biidnillaah okay marka qur-aanka meel walba ciyaalka ka gaaraan mar walba waxaa muhiim u ah inaanan la ilaawin aayadihii la bartay iyo qur-aankii la bartay marka ani halkan jadwal aa samaysanay maalin walba waxaa isku daynaa meesha aan marayno iyo aayado kale suurado kale oo juskaas markaas la maraayo ka mid a inaan akhrino si haddii kale maaragta waa la ilaawaya qur-aanka ku celcelis badan oo u baahan yahay si u xasuustaan waxyaabihii lasoo bartay insha allah marka maalin walba waxaan sameynaa wiigi hal mar at least waa inaan ka dhex baxnaa inta suuradood oon markaas aan naqaano waa inaan akhrinaa marka waxaa kala qaybin kartaa marba casharka markaas la taagan yahay iyo hal suurad ama casharka markaas la taagan yahay iyo 2 suurad waxay ku xiran tahay waqtiga la haayo iyo sida wax loo plan gareeyo soo haddii aad planka ku socotid insha allah wax walba plan ay u baahan yihiin ilmahana dhiirigeli badan ay ka helayaan soo hadda halkan waxaan ku qoray isniin talaado arbaco ilaa ay axad soo maalinta jimcaha hadda halkan ma igu qorna mujidin arbaco khamiis waxaa ku xigta sabti iyo axad soo jimcaha ma barano qur'aan because maalintaas waa maalinta ciyaalka masjidka la geeyo iyo maaragta waxyaabo kale lala sameeyo maalin suuratu kahf bisa akhrisanaa insha allah waana idin sheegaya maalinta jimcaha waxaan u sameeyey ciyaalka buuggaan u sameeyey waxaa ku qoran akhrisa buuggan ducada maalinta jimcaha soo maalinta jimcaha buuggaana soo baxsanaa waxaa noogu qoran ducooyinka la akhrinayo maalinta jimcaha iyo suuradaha gaagaaban oo rabna inaan waalidiinteen ugu duceyno marka cilmi kastoo ciyaalka la baro muhiim waxaa ah in lagu soo celceliyo oo maalintaada iyo noloshaada ay ka mid noqoto soo haddii aad program haysatid ama routine fiican haddii aad haysatid ilmaha markaas mana ilaawayaan wixii caadi u noqonaysaa good habit aa la dhahaa waxyaabahaasna waa waxyaabaha noloshooda ka caawinaysa biidnillaah marka buuggaas waa maalinta jimcaha akhrisanaa waxaa ku qoran salliga nebiga waxaa ku qoran sala allahu calayhi wasalam waxaa ku qoran aayatul kursiga suurat al-ikhlaas intaasaa ku qoran iyo suurat faatixa intaasoo aayadood ku qoran marka inta jeer oo raba inaan akhrino xitaa warqadaha sidaasaa usoo daabacay marka suuratu ikhlaas qul huwa allahu axad waxaan ku dhaha 11 jeeraa soo daabacay 11 mar aan akhrineynaa marka so marka ilmaha waxay u noqonaysaa waxyaabo ay mar walba lasoo bixi karaan ay akhrisan karaan adigana waa arkaysaa meeshaa maraysiin progresskiina waxyaabaha kale oo halka rabaa marka inaa idinka tuso walaalayaal waxay tahay gurigaaga markii aayadaha gaagaaban oo rabtid ciyaalka inaad bartid si fiican ay kuugu bartaan halkan oo kale waxaa noogu qoran adkaarul masaa halkan waxaa noogu qoran adkaaru sabaax marka sida ujeediin warqadaasoo kale u ahaa marka hore markaan soo daabacay hadda xagga aayad kale ku qoran laakiin marka hore waa soo daabacay markaa kadib waxaan soo geliyay fareenka si darbiga loo siro qolka ciyaalka seexanayaan ama fadhiga meesha ciyaalka ku badan yihiin mar walba markaa aragno marka fareenkaas waxaan ognahay aayadaha adkaarteena inay noogu qoran tahay mana naga kala dhumayso soo waa u fariisanaynaa
waxaan leenahay adkaaru sabaaxa akhrisanaynaa intaasoo adkaaraa noogu qoran ya 5-6 adkaar waa akhrinaynaa and then habeenkii markii la gaaro adkaaru masaa haddana waa akhrinaynaa 5 ama 6 ya waa akhrinaynaa alxamdulilah ilmahaaga marka waxay ku arkayaan adkaartaada waxay ka mid tahay noloshaada qur-aan akhriskaaga wuxuu ka mid yahay noloshaada mataqaanaa in ilaahay lagu xirnaado waxay ka mid tahay noloshaada ma aha waxyaabo la iska raadinayo iyo waxyaabo oo loo sameynayo mar walba waa in nolosheena ku xirnaataa waxaan ka wadaa markay adiga ka arkaan wanaaga ilmaha role model hadda anaga u noqonay naga arkaan wanaaga iyagana way fahmayaan waxaan inay tahay waxyaabo nolosheena ka mid ah oo ilaahay noogu talagalay inaan sameyno haddii aan rabno inaan ilaahay caabudno marka adiga waxaan ku dhihi lahaa mar walba adi ilmahaaga role model fiican u noqo qur-aankaaga markaa akhrisanaysid adiga waqti la qaadanaysid waxaa muhiim ah ilmaha inay kaa arkaan in adiga ilaahay waqti la qaadanaysid soo waxba hala galin qol ama maaragtay meel gooniya hala tegin iyo waqti gooniya hala sugin markay hurdayaan waxaa isku daydaa markay ciyaalkaaga soo jeedaan aayadahaaga iyo waajibaadkaaga ina adigana kasoo baxdid insha allah si ay ku arkaan inay tahay wax nolosha ka mid a oona loo baahnayn in mataqaanaa marka iyaga seexdaan kadib in la sameeyo because sababta aan rabno ilmaha inaan u tusno good role model inaan u noqono si iyaga beri anaga noogu daysadaan aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal halkan waxaan kusoo gabagabeynayaa anigoo qoraayo suurata kowthar waxaan sameeyey kitaabka jus cama juska 30aad hadduu ilaahay yidhaah waad ka iibsan kartaan amazonka marka aayadaha sidaasay ugu qoran yihiin waxaa loo baahan yahay qalin in lala dul maro marka caruurta aaday ugu wanaagsan tahay haddii kaleba adigaa u baahan insha allah walaahi deganaanaad ka dareemaysaa qur-aanka ilaahay markaad qoraysid aad iyo aada u mahadsantihiin marka waxaan rajeynaa inaa intaas ka faa'iidaysateen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu